bulshada dowladda hoose ayaa la doonay iyo masjidka shirkadda nadaafadda horseed oo si kaashanayeen dowladda hoose magaalada Boorama sidii khashka lagu nadiifin lahaa degmadaasi waxaana warbaasi ka hadlay agaasimaha shirkadda nadaafadda horseed iyo madaxa waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose magaalada Boorama ayaa la doonay waxaana ay bulshada degmada shakhsiyan ugu baaqeen inay ilaaliyaan nadaafadda. waxaan joognaa geedii xoolaha waxaan u wadnaa sidii caadada noo haydba ololahani waa olole ka duwan ololayaashii hore oo olole baaxad weyn leh waxaan nagala soo qayb galay gudoomiyaha degmada Sheekh Ismaan mudane Cabdisahal Ariite sidoo kale waxaan nagala soo qayb galay agaasimaha arrimaha bulshada ee dawladda hoose mudane Ayaale Xuseen Doone sidoo kale waxaan nagala soo qayb galay madaxa genderka officerka Safiya Cabdinuur waan uga mahad celinayaa dhammaantood sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa shirkadaha oo badbaadiyo horseed bay ka soo qayb galeen guubaabadeedu waxay tahay in bulshadu ay ka qayb qaataan bilicda iyo ilaalinta deegaanka inaynu dhammaantiin gacmays qabsanno inaynu dhammaantiin ilaashanno deegaankeena waxaan ka shaqeynaynaa oo joognaa degmada Sheekh Ismaan oo gudoomiyaheegii nala joogo waxaan halkan uga mahad celinayaa gudoomiyaha Sheekh Ismaan shirkadda badbaado iyo shirkadda horseed oo gacan weyn nagala geystay khamiista maanta waa maalin weyn oo kale waa 3-4 degmo ee hore waan soo dhamaynay halkii aan ka bilaabnay ugu horeysay ayaan maantana joognaa waxa weeye shaqadu si fiican bay noogu socotaa degmadu in aan u shaqeyno ayaan diyaar aanu nahay mar walba waxaan ku fooganahay degmada bilicdeeda iyo nadaafadeeda oo nagu hogaaminayaan maamulka dawladda hoose xogayaha degmada Boorama iyo maayirka degmada Boorama dhammaan waxaan u mahad celinayaa oo kale shaqaale weynaha arrimaha bulshada degmada Boorama anigoo madaxii horumarinta haweenka degmada ama gender officer waxaan halkan aad guubaabo ballaaran u marinayaa in nadaafadda aan hagaajino reer Boorama dhammaan xaafad kasta wax kasta nadaafadda aan hagaajino nadaafaddu intuu cudurku inoo jiro ayuu qashinku inoo jira ugu dambeyntii waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Sheekh Ismaan Cabdisahal Ismaan Ariite waxana uu yiri maanta oo ay Ramadaan 13 tahay inaan ololo nadaafadeed wajigiisii labaad aan ku soo qaadno degmada Sheekh Ismaan goobtan oo ahayd gooba markii hore ololo ku soo qaadnay haddana qashinka yaala awgii iyo qashinkii aan dib u qaadnay oo dib loo soo dhigay qashinkan hore u qaadnay oo dib loo soo dhigay xaafadaha Sheekh Ismaan anigoo gudoomiyahoogi waxaan ka codsan lahaa shirkadda horseed ee la shaqeysa inay gawaarida qashinka saaraan ay ku xidhnaadaan halka waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa madaxa ugu sareeya dawladda hoose maayirka gudoomiye ku-xigeenka xogayaha fulinta iyo waaxda arrimaha bulshada oo Ayaale Doone uu hogaaminayo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada Ayaale Doone hogaaminayo oo iyo Safiya oo gender officer waxaan halka kale uga mahad celinayaa shirkadda horseed shirkadda badbaado oo ololahan aad iyo aad ka u ballaaran qayb lixaad la ka wada qaadatay howl weyn ba halkan ka socota dadka waxaan ka codsan lahayn in qashinka ay ku xidhnaadaan shirkaduhu howl weyn bay hayaan nadaafadda magaalada inoo hayaan qashinka meelahan imanaya waa qashin dadka guryahooda ka yimiday qashin dadka ay soo qaadaan ay meelahan ku tuuraan ayay sheegeen dadka meelahan goobahan wada marayo dhan ilaa saaka oo dhan marka min fadlikum qashinka gurigaaga ka soo baxa waxaad keenaysaa guri kale dhabarkiisa intii lagu karaahiyeysan lahaa ee lagu habaari lahaa waxaa mudan gaadhiga ku hor imanayay inaad la sugtid maalintuu ku imanayo aad saartid nadaafadda inaan gacmahaas ka wada qabsano weeyaan xili roobaad weeyaan roob baa soo socda qashinkan meelahan aad soo dhigaysid waxa laga yaabaa inuu xanuun ka dhasho taasina aad adigu yeelato sababteeda oo dhan marka qashinka gurigaaga ka soo baxo gurigaaga ku xakamee gaadhiga nadaafadda markuu ku yimaadana gaadhiga saar insha Allah biidmillaahi kariim nadaafadda inaan gacmahaas ka wada qabsano bilicda magaalada inaan gacmahaas ka wada qabsanaay waa wax bulshada oo dhan u wada dan marka anigoo gudoomiyaha waxaan bulshadayda ka codsan lahaa gudoomiyaha wahay ee degmada Sheekh Ismaan shirkadda u shaqeysayna ku xidhnaad magaalada waxaa ka socda horumar aad u ballaaran oo wadooyinka ay qayb ka yihiin nadaafadana ay qayb ka yihiin wadooyinka aan dhisnay inay bulshadu ilaashatana waa qayb weeyaan siiba dadka ku daadinaya biyayaasha oo booyaduhu ugu horeeyaan si gooniyaan ula soconaa oo toos baan ula soconaa insha Allah
waxna waan ka qaban doonaa wadooyinka tacabka galay cashuurta bulshada laga dhisay in biyeynta lagu daadiyo ay dib u go'do wadadaas waxay noqonaysaa arin aad u adag qofkii lagu arkayna talaaba laga qaadi doonaa qof walba waa inuu wadaminimada ay damaqdaa waxaan bulshada loo sameeyay waa inuu qof walba xaqiisa